بسم الله الرحمن الرحيم وحنكو بالله يا والله وبالله وتالله نكلا علي عبد ورديري على جيب كجري ومسيحي عن دين الإسلام كهيسن أفكيسا أيو نوغا قري وحانو قبصنا يا مرقاتي قدوميها قد دورشوين كقرن كحليميري إدا حليميري أو قبصنا يا وحانو قبصنا يا نكلا هذا بئر نور أو قبصنا يا burjumka markaan joognay kitaabka quraanka uu noogu dhaartay wuxuu yiri waligay ma soomin mana salaadin waxaan ahay masiixi aan aaminsanayn islaamka horta qofka oo farmaajo noo wado farmaajana waa la mid waxa ma dhaama sidii aniga tahay waan aniga ka shaqeeyay waagii qoloyinka Soomaali masiixiyiinta inay farmaajo taageeraan oo dhahaan ninkaas aan noo dhashay halka isaga xireen waa halkaas taasaan leeyahay laakiin waxa uu kordhiyay in uu xoojiyo dhaqankiisa ku dhisnaa caadifada iyo nacamlaynta shaqaalihii uu ugu tagay xarunta gobolka Banaadir ayuu ku bilaabay handadaad isaga oo ku amray in kaliya ay ka shaqeyn karaan danihiisa sida in ay social media ku amaanaan in ay aflagaadeeyaan dadka isaga ka soo horjeeda iyo in ay sawirkiisa iyo kan madaxweynaha saartaan Facebook-yadooda ama ay toddobaadkii mar soo dhigaan barahooda bulshada dadkaas dulmanaha hadda u ah ee qasban waxa kamid ah gudoomiye ku-xigeenka amniga degmada Daynile Farac Cadde gudoomiye ku-xigeenka amniga degmada Yaaqshid Abdi Fataax taliyaha saldhigga booliiska Bashiir Durqaan injineer Guuleed Cali Garasow Axmed Caato Cabdi Qani Seed anta wax keeni kara malaha inaad shaqo ku bedelataan sumcadiinii dadnimadiina qodobka saddexaad shaqo ka eriyad sida aan ku ogaanay baaris dhameystiran oo aan sameynay tirada shaqaalaha ee Cali uu ka eriyay shaqooyinka waxay gaarayaan 30 ruux oo u badan dhalinyaro oo isugu jira gudoomiyayaal agaasimayaal madax qaybeedyo iyo shaqaale hoosaad oo ay kamid yihiin haweenka nadaafada oo ka tirsanaa hay'adaha dawladda heer federaal iyo gobolka Banaadir dadka uu shaqada ka eriyay ee qaraabada dhow yihiin oo aan helnay magacyadooda waxaa kamid ahaa Diini Cumar Diini Aisha Saciid أحمد محمد حسين يوسف عبد عثمان محمود عثمان يحيى حرسي علي لول إبراهيم سمتر يقار كلو بدن وأن مقعيدود أقرني حالة أمن درتود ما دام شقدي لقى إريي iyo dawladda oo u dakanoobay haddana la nool qoysaskooda oo meelo kala duwan degan ali oo wiilasha screenshot-ka nooga daa dadka dhan xor bay noqdeen oo dawladdu waa dhacday qodobka afraad waxqabadka Ali inta uu yahay gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Banaadir oo dadka uu ku matalo beel ahaan ay ka sugayeen matalaad waa uu ku guul dareystay laakiin waxa uu ku guuleystay in awoodiisa uu uga argoosto oo ay dhibanayaal u yihiin dhalinyaro badan oo leh mustaqbal isagana uga horeeyay shaqada dawladnimada qodobka shanaad Cali iyo Habar Gidir Cali oo heeb ahaan ku abtirsada beesha Habar Gidir ayaa haddana noqday mas'uulkii ugu horeeyay oo xil intaas la qabta ee waqtigiisa iyo waxqabadkiisa ku dhameeya in uu awoodda dawladnimada ku baabi'iyo beesha uu ka soo jeedo waxa la aaminsan yahay in dhaqamadaas uu ku raali gelinayo madaxweynaha waqtiga uu ka dhamaaday ee farmaajo iyada oo xilalka laga qaaday dhalinyarada Habar Gidir qaarkood loo dhiibay kuwa farmaajo ku heeb ah si kasto oo Cali isku indhatiro hadda kuwan waa shanta qodob ee soo afjaray mustaqbalkiisa siyaasadeed dhalinyarada beesha Habar Gidir waxaan leeyahay Ali Jeeb ku jiray muddadii uu joogay gobolka Banaadir wuxuu sameeyay waad ogtihiin wuxuu idinku sameeyay waa ognahay een sidoo hadda idin dhaqmayna waa ognahay waxaan leeyahay waxaad ka qaadan kartaa ka qaata waxaad ka cuni kartaa ka cuna laakiin isaga laba gooraba nin nool ma aha qiyaaliyo ku nool yahay laakiin waxaan dib u xasuusinayaa Ali Jeeb ku jira muuqaalkan war labada sano yaana laga noqon labadii aadan galayr yaana naga noqon labadii halaad oo aadan galayr u diiday ay samaanta naga noqon waliba waxaan ku darayaa taariikhan hore u leenahay laba la diido Ali Mahdi aan laba sano ka diidnay Ali Mahdi Maxamed labada sano markii laga diiday taraxum ay ahayd
magaaladan aan joognay korontaduna waa joogtay biyuhuna waa socdeen labadii sano aan diidnay waxay nagu qaadatay 30 sano labada sano oo maanta halkaan taagan walaalayaal maanta aan talana seegin hore inoo seegtay wiilasha barwaaqada ku koray oo xoolo aysan shaqaysan oo adeerada abtaashadu u shaqeeyaan oo meelaha doobinaya yaana maanta talada seejin maanta in horta laay intaasaan ku soo gabagabeynayaa go'aankuna waa noo go'aankii daahir jeesow haddii dowladdu ka libiqsato maanta waxay maraysaa meesha la yiraahdo who blinks first ilmaha Mareykanka jooga markay isfeerayaan waa la iswaabiyaa marka waxay fiiriyaan midka koowaad il muxuu ahaa hor libiqsada marka who blinks first yaa la yiraahdaa annaga yaana maanta nagu dhicin nimankii waxa u mahayaan waa wareereen waxay marayaan maanta yaa tolahay xilligii dagaalada sokeeye maadaama dawladii burburtay يا قبائلات كوحال لديه جري ريهبل وحاتين آكوات ريهبل وحاتين آقلبات ريهبل آق سدحات مديو كلام ما أنت تاجن هبلو أديكو جور مرنا يدك هبلو أديكو جور ورشد باسدة دك ورحس غيره أديكو جور دايري لدك رنت أنا اسكو شاهدنا وأسيد عبد الله حسن أو شاقي والله مرنا يحدي لقولنا بتقلو وددك عيدا لقا قلي لوغا نبد قلو يا النصيب لليهي رقنا رقي ما حسن غيره محمد غير متيد ما دقال بكرتيت اوذا وايا وسغنا متيد ما دقال بكرتيت حسن شيخو متيد حسين حاج بود يا رقي هاي متيد idinku waliba waxa dheertiin eeda mar idinta la waeedaysatiin wadakan waxa idinta la magaxun waxa idin yaala sidii Axmed Fiqo oo sheegay niman ayaxa oo gaajaysan oo dalkii diirtay oo isbitaaladii gatay oo mushaarkii ciidamada gatay oo muxuu ahaa garoomadii lagu ciyaarayay gatay taariikhdaas idin taala wallahi qaf idin soo baxay inuu sajirin waxaan ku soo gabagabeynayaa wartalow labadii halaad oo aadan galay maanta yaana naga noqon aljeebku jir waxaan weydiinayaa baqbaqdi maanta ka dhacaysay ma xasuusta dib u celi xasuustaada waxaad ii sheegtaa yaa guuleystay yaa laga guuleystay inaad tiraahdo waxaan tagayaa dhuusamareeb oo kursi ay habargiir leedahay xildhibaan baan soo qaadanayaana waxay la mid tahay qiyaaligii maalinta aad ku noolayd ha ku riyoon inuu qof habargiira aljeebku jira taageero waadna dishay hawiyaad laysay habargiir baad laysay ninka saa u caytamayaa tahay ninka saa u baqbaqlahayaa tahay wixii aad ciddan ka hesho ayaadna leedahay warkanu intaas ayuu iga dhan yahay war kalena soo geli mayee caliyow war waxaan ku dhameeyey dhuusamareebaan noo ballana dhuusamareeb imow haddaad kursi ka soo qaadda adigaan aabe ku leeyahay aabe ayaan ku leeyahay haddaad ceebowdana ceebbaan golada lagu geliyey ee ogow cidda habargiiraysa ahayn cid xun oo biirqaatayaala oo dadka nuucaaga ahi la shaqeeya xil aad qabatana adoo islaamnimadii ka tegey xil aad u qabatay ciddaanna waxaa lagu ogaaday gobolka banaadir markaad tagto waxaa ku samaysay dadkii habargiir gabdhihii wiilashii inaad gabar walaasha ah oo habargiir ku tiraa 5 sac guriga igu imow yaa oo shaqo ka soo doonataa lagu ogaaday in gabar habargiira oo kula dhigata meesha mataqaana ka shaqaysato oo ugu timid aad ku tiraahdo shaqadan ka eriya ama 5 sac imo inaad ku tiraahdo dadkii farmaajo taageeri diiday shaqadan ka eriye wixii aad ku samaysay habargiir ayaa nagu filan waan isu joognaa caliyow waan lagu sugayaa biyo sare tagay waa la sugayaa waxaan kaa sugaynaa barti baan kugu sugaynaa barti ayada ahayd aan kugu sugaynaa laagta dhuusamareebood ayaan kugu sugaynaa caliyow imow barka ciyaal lacag ha u qaybin maanta oo lacagta ummadan ka xadda hasiisiin dad hotel ha qaban wadooyin ha xiran waxaasi waxaa dhaawaa la yaqaanaa dadka dhow ku yaqaanaa beentaadi maalmaha beenta ee la qaadan jiray propaganda asama jirtay waa la soo dhaafo waa la isbartay dadka dhan way soo ogyihiin caliyow waa ku sugaynaa shanta qodob ee soo afjaray mustaqbalkiisa siyaasadeed Cali Yara Cali
cali yare oo taariikhdiisa kasoo bilaabatay maxbuusnimo balse ku caanbaxay dibadbaxyadii lagu taageerayay doorashadii madaxweynaha waqtiga uu ka dhammaaday ee farmaajo waa nin aruursaday sifooyin uusan mahdin iyo su-aalo uusan heli karin jawaabtooda. sheekadan waxaan ku eegaynaa 5 qodob ee soo afjaray mustaqbalkiisa siyaasadeed cali yare cali ee uu sameeyay inta ay joogtay xukuumadda nabad iyo nolol. qodobka koowaad, Facebook screenshot. cali jeeb ku jire oo 3 sano ee ugu horeysay xukunka farmaajo ku qaatay baagamuudo iyo banaanjoognimo ayaa dhinaca kale abuurtay shaqo uu ku muujinayay sida uu daacad ugu yahay farmaajo, waxaana uu habeen iyo maalin screenshot ka qaadi jiray Facebookyada shaqaalaha dawladda ee soo qora talo ama aragti dawlad dhis ah, iyada oo ujeedkiisu yahay in shaqaalahaas la ciqaabo ama shaqada laga eriyo. ilaa markii dambe ruufiyaannimada cali yare cali ay gaartay in uu kala garan waayo qoraalada jacaylka iyo siyaasadda. qodobka labaad, awood sheegasho. maalmihii dhimashada ee nabad iyo nolol cali waxaa lagu abaalmariyay xilka gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Banaadir. dad badan ayaa filayay in xilkaas caqli ku siyaasan doono, laakiin waxa uu u kordhiyay in uu xoojiyo dhaqankiisa ku dhisnaa caadifada iyo nacamlaynta. shaqaalihii uu ugu tagay xarunta gobolka Banaadir ayuu ku bilaabay handadaad, isaga oo ku amray in kaliya ay ka shaqayn karaan danihiisa, sida in ay social media ku amaanaan, in ay aflagaadeeyaan dadka isaga ka soo horjeeda, iyo in ay sawirkiisa iyo kan madaxweynaha saartaan Facebookyadooda ama ay toddobaadkii mar soo dhigaan barahooda bulshada. dadkaas dulmanaha hadda u ah ee qasban waxaa ka mid ah gudoomiye ku-xigeenka amniga degmada Daynile Farac Cadde, gudoomiye ku-xigeenka amniga degmada Yaaqshid Abdi Fataax, taliyaha saldhigga booliiska Bashiir Durqaan, injineer Guuleed Cali Garasow, Axmed Caato, Cabdiqani Seed. maanta wax keeni kara ma laha inaad shaqo ku bedelataan sumcadiinna iyo dadnimadiinna. qodobka saddexaad, shaqo ka eriyid. sida aan ku ogaanay baaris dhammaystiran oo aan sameynay, tirada shaqaalaha ee cali yare cali uu ka eriyay shaqooyinka waxay gaarayaan 30 ruux oo u badan dhalinyaro oo isugu jira gudoomiyayaal, agaasimayaal, madax qaybeedyo iyo shaqaale hoosaad oo ay ka mid yihiin haweenka nadaafadda oo ka tirsanaa hay-adaha dawladda heer federaal iyo gobolka Banaadir. dadka uu shaqada ka eriyay ee qaraabada dhow yihiin oo aan helnay magacyadooda waxaa ka mid ahaa Diini Cumar Diini, Caaisha Saciid, Axmed Maxamed Xuseen, Yuusuf Cabdi Cismaan, Maxamuud Cismaan, Yaxya Xirsi Cali, Lul Ibraahim Samatar iyo qaar kaloo badan oo aan magacyadooda u qarinay xaalado amni dartood maadaama shaqadii laga eriyay iyo dawladda oo u dakanoobay haddana la nool qoysaskooda oo meelo kala duwan degan. cali oo wiilasha screenshot-ka nooga daa dadka dhan xor bay noqdeen oo dawladdu waa dhacday. qodobka afraad, waxqabadka. cali inta uu yahay gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka Banaadir oo dadka uu ku matalo beel ahaan ay ka sugayeen matalaad, waa uu ku guuldareystay, laakiin waxa uu ku guuleystay in awoodiisa uu uga argoosto oo ay dhibanayaal u yihiin dhalinyaro badan oo leh mustaqbal, isagana uga horeeyay shaqada dawladnimada. qodobka shanaad, cali yare cali iyo Habargidir. cali yare oo heeb ahaan ku abtirsada beesha Habargidir ayaa haddana noqday mas'uulkii ugu horeeyay oo xil intaas la qabta ee waqtigiisa iyo waxqabadkiisa ku dhameeya in uu awoodda dawladnimada ku baabi'iyo beesha uu ka soo jeedo. waxaa la aaminsan yahay in dhaqamadaas uu ku raali gelinayo madaxweynaha waqtiga uu ka dhammaaday ee farmaajo, iyada oo xilalka laga qaaday dhalinyarada Habargidir qaarkood loo dhiibay kuwo farmaajo ku heeb ah. si kasta oo cali yare cali isku indhatiro hadda, kuwan waa 5 qodob ee soo afjaray mustaqbalkiisa siyaasadeed. waa ku sugaynaa yaan la ceeboobin, yaa carabka candhuuftiisa kugu dhegin, adoo wiji dadbays yaan lagu arag, magacaaga farmaajo uusan raacin, maalintuu dhintay yaa hala dhimanin. intaasaa isku leenahay daal casuxlo dabaysha geeda marxuuna ciyaarsiiso. Habargidir waa ballantay, waxayna ku ballantay biiriqaate iyo masiixi inaysan ku soo siin. wabilaahi tawfiiq.